بسم الله الرحيم مقعي وجامع نور أحمد وحن قصة على تلفزيون الجزيرة رئيس وزارها iyo xubnaha golaha wasiirada aad baan ugu mahad celinayaa chance kan siiyayna su'aalo weydiino su'aasha koobaad ee rabaa inaan weydiiyo waxa weeyaan waa mid la xiriira arrimaha amniga tusaale ahaan oo kale waxa jirta ciidamada xasilinta magaalada Muqdisho in far badan waxa dhacday marka gawaarida la joojiyo waxa lagu oranayaa kan sharcigii dawladda dadka Muqdisho joogana inta dawladda u shaqeysa iyo inta iska socoto waxa badan inta caadiga ah danahooda gaarka ah ku faafa marka pointigaas runtii waa arin ma policy aad ugu tala gasheen ba mise waa arin u baahan dhaca si khalada ku dhaco u baahan in la isku baraarujiyo su'aasha kale aan qaba waxa weeyaan Abu Mansuur Robo waxa la dawladda ayuu isu soo dhiibay waxaanu ka soo baxay shabaab haddana waxa la yiri wuxuu dawladda kula jiraa wada hadal marka ma garaba nooca wada hadal ee uu idin la galaya laakiin waa bay soo dhiibay dawladda ajandaheeda waa la yaqaanaa meesha u socoto waa la yaqaanaa meesha ka timina waa la yaqaanaa nooca wada hadal ee Abu Mansuur kula jirtaan waa maxay su'aal issue hadda taagan baan rabaa inaan ku dhex darsado ururka ONLF wuxuu soo saaray bayaan saxafi oo sheegayo in Cabdikariin Sheekh Muuse la yiraahdo laga soo qabtay magaalada Gaalkacyo cadaadad la keenay Muqdisho la keenay Ethiopia lagu wareejiyay waxaanay leeyihiin dawladda Soomaaliya wareejisay marka chance kan oo ka faa'iideysayna caawa la joogay gadaashina leeyahay ma xaman kare hadda noo sheega waxa aad ka qabtaan arrinkaas waa mahadsantii بسم الله الرحمن الرحيم waxaan jeclaan lahaa inaan ka jawaabo arrinka ah ciidamada xasilinta oo weydiiya taasirayaal dawlo arrinkaas waa annaga nafteeda weydiinay siyaasad dawladeedna ma ahana waa wax iska yimid haddii ilaahay yana masaxayna insha allah inay qalad tahaan annaga baa noo muuqata laakiin sida ugu dhaqsiyaha badan ayaan u sixi doonaa haddii ilaah yidhaahdo arrinka la xiriira sarkaalka la sheegay inuu ONLF yahay ee dawladdu wareejisay sidaad la socotaanba arrinkaas waa arrin oo xasaasi ah oo ay tahay wakhtigeeda iyo goobteeda in looga jawaabo anigoo afwaaya dawladda waxaan jeclaan madaxda qaranka waxaa la yiraahdaa hay'adaha sirdoonka u taliya marka hadduu naafduubay waxaan isagaa noogu xog ogaalsan dalka amnigiisa arrimihi amniga isagaa kaaga jawaabay arrinka wada hadalka ayaa igu soo hartay su'aasha wada hadalka waa run Mukhtaar Robo wuxuu joogaa xamar waxa uu yimid ciidamo Soomaaliyeed ayaa soo waday oo gacantooda ku soo waday iyagaa keenay iyagaa diyaarad soo saaray waxaan rabaa horta inaad ogaataan in Abu Mansuur aanay nagala shaqayn qof ajnabiya inay noo keento waxaan rabaa inaad ogaataan dad Soomaaliyeed ayaa diyaarad intay qaateen oo ciidan qaateen oo hawd tageen ciidan Soomaaliyeed ayaa horta keenay xamar Soomaaliyeed waxa u qiimo marka qof waa inaan ka fikirnaa sideeba uga faa'iideysan karnaa mustaqbalka iyo dawladdu waxay ka wada hadlaynaa ama aan rabnaa inaan ogaano khibradda uu leeyahay waxa uu soo maray xaaladda ay ku sugan yihiin qoladii uu ka soo baxay ama meesha ay taagan yihiin arrimaha amniga sidee buu soo dawladda Soomaaliya gacan mustaqbalku wasiin karaa dawladdu waliba waajib ku ah inay eegto fursad walba ay uga shaqayn karto arrimaha amniga wada hadalkaasi waxa uu lugta ama salka ku hayaa in la baaro ama la raadiyo sidii aan ku heli lahayn qaab aan uga faa'iideysano cid walba markii uu soo dhamaado wada hadalkaas isaguna maadaama hadda aan ku heshiinay inaan bishiiba mar kulanno bil walba aan idiin soo baldhigno waxqabadkeenna su'aalahan aad rabtaan aadna weydiisaan annaguna su'aalahan idiin qabnaa idin weydiin doonaa markaad naga dhamaysataan ayaad haddii ilaa yidhahda idinkugu soo bandhigi doonaa waa wada hadal ku salaysan
danta dawladda Soomaaliyeed iyo danta amniga ummadda Soomaaliyeed waa mahadsantiin